النبي قال عليه الصلاة والسلام إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطريق. إلهي وحلي ملائكة سياحة للك مرة ملائكة تاسدن كلام لها وحي رادعين ينميل إلهي لقو حصيا كشران ملائكة سياحة وللك الصعودة وحاني رادعين ينقدول إلهي حصيا إنيهلا marka ay meel yimaadaan goob ilaahay lagu xusay isu yeedha waxay dhaadaan war halkan baa ilaahay lagu xusaya kaalay way malagtu meelaha xumaa lagu wado ma soo xaadirto waxay soo xaadirtaa dhulka khayrku joogo meel khayr ka jira marka ay arkaan ayay isu yeedhaan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam tanaadaw halummu ila haajatikum bay dhaadaan balka waran fadhi malaa'iktu isugu yeedhaan su'aaladay war bal halkaas ugu keena malaa'ikta isu yeedhato waxay dhaadaan باهديني باهشينه وكالي دنتيني إلى إيا السماء يسطر القرآن بحديث بالتلمامي فيحفوهم بأجنحتهم إلى السماء ملائكته ما يشن لفردية إلا إيا السماء أي يسطر كرورنتهي مركزان ربي قد ويديا يساقوا أقوم بدن وحيد هذا الدوما هيقا أركتين بحيلي أي إلهي ويديا سبحانه وتعالى waxay dhahdaan ilaahay way ku tasbiixsanayaan oo xumahay kaan nazahayan tasbiixdu waa ilaahay oo aad xuma ceeb ka reebtid way ukabbiruunak waa ku weynaynayaan way xamduunak waa ku mahadnaqayaan waa ku ammaanayaan xamdigaaga iyo majdigaaga ammaantaada iyo sharaftaada sheegsheegeeday wada ilaahay baa wuxuu ku yiraahdaa subxaanahu wa ta'aala hal ra'awni miyay arkeen kuwaasi markaasay malaa'iktu tiraahdaa allah wallahi ma ra'aw kuwa sidaa ku ammaanaya ilaahay oo kumanay arag ilaahay baa wuxuu yiraahdaa markaas subxaanahu wa ta'aala kayfa law ra'awni maxay yeeli lahaayeen hadday arki lahaayeen waxay dhahdaan ilaahay hadday ku arki lahaayeen cibaadadooda tamjiidkooda iyo tasbiixooda yani xuma ka hufnaanta ay samaynayaan iyo say ku ammaanayaan iyo sheegsheegooda uu ka badan lahaa inta tan ilaahay wuxuu ku yiraahdaa malaa'iktiisa markaa maxay weydiisanayeen waxay dhahdaan ilaahu waxay ku weydiisanayeen jannadaada rabba wuxuu yiraahdaa oo miyay arkeen jannada may baa la yiraahdaa bal maxay yeeli lahaayeen buu rabbi leeyahay hadday jannada soo arki lahaayeen weynideeda iyo badhaadheeda iyo barwaaqadeeda waxa yaalla hadday arki lahaayeen maxay samayn lahaayeen ilaahu hadday soo arki lahaayeen dadaalka intay ka sii badan lahaayeen bay dhahdeen baadi goobkeedana wuu u tiro badan lahaa hunguriga ka hayaana wuu tiro badan lahaa dabeeta waxay rabba wuxuu weydiiyaa maxay iga magan galayeen waxay dhahdaan ilaahay naartaaday ka magan galayeen oo naarta miyay arkeen baa la yiraahdaa ilaahu may arag hadday arkaan maxay yeeli lahaayeen ilaahay way ka carari lahaayeen sayimka ugu ordayaan si ka badan bay uga firdhan lahaayeen waana cabsidooduna waa ku badan lahayd ilaahay wuxuu ku yiraahdaa subxaanahu wa ta'aala natiijadii حواركي إلهي هي ملائكة الدحمر واكن أصل المسألة وحي هيد دد إلهي حصية هي ملائك للمرأة ودول كودا اسك الصعدة ودي دي يدول كإلهي لغو حصه وهلي قوب إلهي لغو حصي دبتنا ربي سؤال ويدي ملائكة تلوي كجوابين إلهي سبحانه وتعالى وحوقو قبق يا مركة أشهدكم وحند مرخاتي قلنا يا ملائك يهي أني قد غفرت له كوا إن دنبي قود الضافي أيان دين مرخاتي قليه با إلهي سبحانه وتعالى قيامه مرخاتي فرع كواس إن دنبي قود الضافي ملائكة مركا واي هدانا وحيدا هدا ملائكة كم دا هدا سا حديث كقاركوت المامة وحيدا هدا إلهي وحا كجرة مدي ساقو دنك لوي مدان ساقو حسكا إيو باب كان لسعوني دنك هلوة يو وحبوب مراجعيني موقف بان ماشا كسو كلام موح كلا يعني حاجة كلا باهي كلا ميف ودي أيام ماشا تشوغا إلهي وحيد هذا سبحانه وتعالى السجن الدنبقي سوى الناف كان يسوي سكي منه والله ناف وايو هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم بإلهي ودول كاللفر ديانو هوغب إلهي سبحانه وتعالى كوان درادود أيان كان نقول في إلهي سبحانه وتعالى إذا مجالس الذكر هدات فريسته
وأدو سو قصدده إلهي دنبغاغو دافيا حتى هداد سكاك فريستو أي إلهي دنبغاغو دافيا سا حديثك كانت المامية تمعنا هدو حويان قفك مسلم كاهي waxay ahayd inuu in badan isweydiiyo warduulkee ilaahay xusaya ama kaalaya ilaahay xusne ama xusidda ilaahay la xusaya inay noqoto wax weyn oo qofka muslimkii uu raadceeyo oo u baadi koobo